madaxda ugu sareysa maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya ayaa iyagu waxay wadaan kulamo gooni ah oo ay la yeelanayaan saraakiisha ciidamada ammaanka iyadoo laga cabsi qabo markaan isku dhac kale inuu ka dhaco guud ahaanba deegaanada gobolada waqooyi ee Soomaaliya halkaas oo labadii maalmood u dambeysay ay ka taagneed xiisad iyo sidoo kale kacdoon ay wadaan maamulada Puntland iyo sidoo kale Somaliland oo isku kaashanaya sidii guud ahaanba meesha looga saari lahaa maamulka Urdunka cusub ee waqooyi bari Soomaaliya madaxweynaha maamulka waqooyi bari Soomaaliya oo kulamo gooni la qaadanaya siyaasiyiinta kala duwan ee deegaanada ka soo jeeda ayaa waxa la xaqiijiyay inay isku afgarteen sidii guud ahaanba loo difaaci lahaa sharafka iyo sidoo kale maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya SCC qaatumo ayuu maamulkan horay u ahaa iyadoo dhowrkii sano ama labadii sano ugu dambeysaba magacaasi uu ku matalayay maamul goboleed balse hadda dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa u aqoonsatay in uu noqdo maamul rasmi ah waana sababta keentay in uu yeesho maamulo kale oo diidan guud ahaanba jiritaanka maamulkaasi kulankii ay wada yeesheen Somaliland iyo sidoo kale Puntland ayaa waxa la isku afgartay in guud ahaanba meesha laga saaro maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya iyadoo Somaliland si cad iyadoo ay u sheegtay gaar ahaan wasiirkeeda gaashaandhiga ninka loogu magacaabo Maxamed Yuusuf in Puntland ay isku afgarteen in guud ahaanba meesha laga saaro maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya hadda waxa heegan iyo sidoo kale diyaar garow la galiyay ciidamada kala duwan ee maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya kuwaas oo loo sheegay in jihooyin kala duwan ay ka difaacaan maamulkaasi isla markaana aanay dhicin in dagaal toos ah la isugu yimaado gudaha magaalada Laascaanood iyo sidoo kale deegaanada kale ee kaagdhow hadda marka la eego SCC markeedii hore hadda ay ka awood badan tahay oo waxa ku biiray beelo badan oo goboladaasi ama saddexda gobol ka kooban sida dadka deegaanku iyagu hadda ay aaminsan yihiin waxaa suuragal ah in xaalad ka duwan tii hore hadda la galo oo Puntland iyo Somaliland dhinacooda marka la eego waxay wadaan dadaalo ku aadan sidii guud ahaanba maamulkaasi loo soo afjar lahaa balse Cabdulqaadir Firdhiye madaxweynaha maamulka waqooyi bari Soomaaliya oo markiisa labaad la doortay ayaa waxa uu ballan qaaday in marna aysan dhici doonin in maamulada Puntland iyo Somaliland ay ku soo xadgudbaan hadda xaaladdu waa ka dari kartaa waxa hadda soconaya qabanqaabada iyo sidoo kale diyaar garowga kulamo xasaasi ah oo magaalada Laascaanood ka dhacay iyadoo 24 saac u dambeeyay madaxda ugu sareysa SCC qaatumo iyagu ay xoog saarayeen sidii guud ahaanba go'aan midaysan oo rasmi ah looga qaadan lahaa Puntland iyo sidoo kale maamulka kale ee Somaliland dhinaca kale markaan eegno Puntland iyadoo inkastoo ay dafirtay warkii ka soo baxay ee maamulka Somaliland oo ahaa in la burburin doono maamulka cusub ee waqooyi bari haddana warar hoose oo la helayo waxa ay sheegayaan in Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha maamulka Puntland uu wado qorsho uu rabo in guud ahaanba uu ku baabi'iyo jiritaanka maamulka SCC maamulka iyo sidoo kale madaxda ugu sareysa markoodii hore waxa ay sheegeen in guud ahaanba aanay aqoonsaneen maamulka Urdunka ee waqooyi bari Soomaaliya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Lugtur labaduba waxa ay sheegeen in aanay aqoonsanayn maamulka lagu magacaabo waqooyi bari Soomaaliya isla markaana iyagu ay bixin karaan in la aqoonsado iyo sidoo kale la diido taas oo ay ula jeedaan in guud ahaanba iyagu ay leeyihiin awoodda diidmada iyo ogolaanshaha balse madaxda aan raahde maamulka cusub ee waqooyi bari Soomaaliya ayaa iyagu dhinacooda wali waxa ay taagan yihiin in marna aanay suuragal ahayn in loo taliyo oo guud ahaanba halkaasi maamulkooda lagu carqaladeeyo hadda ciidamada kala duwan ee daraawiishta militariga sidoo kale kuwa booliska ayaa heegan la geliyay waxaana hadda suuragal noqon karta in mar walba xiisad kale halkaasi ay ka dhacdo isku dayga ay wadaan maamulada Puntland Somaliland ayaa u muuqanaya mid lagu carqaladeynayo dhismaha fidida maamulada guud ahaanba dalka ka jira iyadoo loo geeyay Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha maamulka Puntland guud ahaanba uu cilaaqaadkii kala dhaxeeyay dawladda dhexe ee Soomaaliya isagu u jiray badalkeeda madaxweyne Xasan iyo sidoo kale wasiiradu waxay isla garteen in guud ahaanba maadaama Puntland dawladdu iyada xiriirka u jirtay in maamulka laga dhinac dhiso waana sababta keentay in hadda loo dhaqaaqo dhinaca maamulka cusub ee waqooyi bari hadda sida ay isla mid waxa soconaya qorshe kale oo weyn oo dawladda federaalka Soomaaliya ee wado oo ku aadan dhismaha maamulka gobolka Awdal wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale mas'uuliyiinta kale dawladda federaalka Soomaaliya ayaa iyagu ka shirsan waqtiga rasmiga ee la cayimi doona maamulka cusub ee Awdal State oo noqon doona maamul kale oo laga dhinac dhiso maamulka Somaliland hadii taasi ay dhacdana waxay noqonaysaa Puntland iyo Somaliland in rajadoodii halkaasi ka jirtay guud ahaanba ay baaba'do
iyadoo Somaliland hadda deegaano badan iyo sidoo kale goobo badan ay maamulayeen si toos ah loola wareegay Puntland sida ay islamida maamulka waqooyi bari oo hore u ahaa SSC Khaatumo xildhibaanada ugu badan ayay ka heestaan oo gobolkaasi ka yimid taas oo laftirkeeda haddii ay si toos ah uga baxaan ay ku noqonayso guud ahaanba caqabad kale oo Puntland iyo sidoo kale dhismaha ama jiritaanka maamulkaasi guud ahaanba dhaawac ku yeelan kara waana arki doonaa waxa ka soo kordha wararka dhinacaasi la xiriira dhinaca kale haddii aanu fiirino mas'uuliyiinta ugu sarsareeya ama siyaasiyiinta ugu waaweyn ee gobolka Awdal ayaa iyagu qaarkood oo ku sugan gudaha Muqdisho iyo sidoo kale daafaca caalamkaba waxay wadaan kulmo gooni ah oo ay ku doonayaan dhameystirka maamulka iyadoo wada hadalna uu socdo madaxda ugu sareysa Awdal State iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya si loo dhameystiro maamulka gobolka Awdal dhinaca kale haddii aanu fiirino Muqdisho waxa lagu wadaa ama ka soconaya qabaqaabadii ugu dambeysay ee ku aadan in bari uu ka qabsoomo dibadbax ay mucaaradka abaabulayaan oo ay gadaal ka taagan yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada dadka ugu badan ba ha ahaadaan kuwii guryahooda dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo ay ka burburisay mucaaradka waxa ay shir Muqdisho ku yeeshay maantana sida ay silmada ku leh kulamo kale oo xasaasi ah ayaa waxay wadaan qabaqaabadii ugu dambeysay ee la doonayo in guud ahaanba lagu soo afjaro hadalkii ahaa Muqdisho dibadbax kama dhici karo iyo sidoo kale Muqdisho gaari weyn oo dhashiika ah laguma dhex mari karo bari Muqdisho waxay u noqon doontaa jawi kale iyadoo cabsi xoogan laga qabo in isku dhac kale uu dhex maro ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa mucaaradka dowladda dhinaceeda waxay wadaa abaabulo iyadoo suuqa Sinai oo hore loo sheegay dibadbax uu ka dhici doono in dowladda iyadu ay ku jirtay jiingado si guud ahaanba dadku halka aanay u galin oo looga ilaaliyo halka siyaasiyiinta mucaaradka iyaguna ay qorsheynayaan in bari halkaas ay tagaan waana goobtii uu ka dhacay dagaalkii uu ku dhintay mid kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka ciidamadii sida gaarka ay u kalsoonaan sida ay islamada qasaarooyin kala duwan iyo dagaalkaasi dhali balse labada dhinacba dowladda sidoo kale mucaaradka kama aysan hadlin dadka shacabka waxa soo gaaray bari cabsi kale ayaa jirta oo Muqdisho in dagaal kale uu ka dhaco iyo sidoo kale in guud ahaanba xaaladdu sidii ay ka duwanaato haddii mucaaradka iyagu ay hubkooda la soo baxaan waxa suuragal ah in dowladda federaalka Soomaaliya ciidamadeeda oo hore amar u qabay ahaa in aanu dhici karin in la joojiyo ciidamada qoryaha ku wata in isku dhac kale halkaas uu ku yimaado Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya dhinaciisa waxa uu sheegay in ay noqon doonto bari maalin taariikhi ah oo cabsi aan laga qabin in guud ahaanba dibadbaxaas uu baaqdo askartii la raba qaranka inay ka shaqeyso dhul ay ka shaqeeyaan hadda caawa aan idinla joogno horseed tarabuunka ciidan askar fadhi maxaa la isku hor fadhiyaa dhul hal qof iyo dhulkaas hal qof oo muslim oo meesha ku dhintay iyo dhulka meesha ku yaalo dhan qofka qiimo badan Ilaahay agtiisa ya ayaan dhawad meeqa ku dhimatay lixa ku dhimatay haddana waxa la rabaa kuwa kale inay dhintaan maxay u dhimanayaan dhulkaasna yaa qaadanaya hala soo gado lacagta laga soo cadeeyo waxa ku jira madaxda dawladda ku jirta waxa ku jira askarta duminayso la soo dirayo og waxaan in xaqdarayno lacag ku qaadanayo war waxaas dawladnimo ma aha aan ka joogno waxa uu dumaaya dalkan waa dhulumka waa inaan fahamnaa taas dadka ganacsatada oo Ilaahay xoolaha u siiyay mas'uuliyadda saaran waxa waaye dadka shacabka inay u naxaan inay u naxariistaan waxaan rabaa qodob kale inaan u gudbo ganacsiga magaaladana maalin walba sida canshuur loo saarayo dukaanada waa la xiray bakaaraha war makaysi bakaaraha inta ugu badneed waa la xiray shirkadihii waa kaceen maxaa yeelay 12 canshuurood aan islahayn oo kala socota oo nabadsuguud qaada oo boolis qaada oo gobolku qaada oo degmo qaadaysa ka socota lacag wareegaysan ma jirto see u noolaanaya marka dadka tee dhaqaale ka keenayaan qofkii dukaan lahayd dukaanka doo xiro qaxooti oo noqonaa ka cararaya meesha kaamu aadana ma leh meel uu galayo ma jirto ya intaas waxaa ka sii daran tacadiyada ka dhaca xabsiyada jirdilka xabsiga aan sharciga waafaqsanayn oo dadka ku dhacaya waxaas wax laga aamusi kara maaha marka annaga waxaan aaminsanahay magaaladan dulmigu waa buux dhaafi waqtiga la jooji lahayo joogtaa qof kastoo sharaf leh oo Soomaaliya ka qayb qaado joojinta gudaha joog dibadda joog ka qayb qaado codkaaga ku biiri u gargaarka garab istaaga dadka dulumka loo barakiciyo
غير مسؤول لما كوين مجرت dadkii Soomaaliyeed ee qaar shabaab ay soo barakiciyeen qaar abaara soo barakiciyeen qaar colaado sokeey soo barakiciyeen ee isdul deganaa in dhulkooda la gatay la barakiciyo mas'uuliyad darro ka weyn dalkan kama jirto siyaasadan rabnaa inaan kugula tartanno masaajidka cayaarta ka dhaaf banaanka u soo bixi siyaasadda xaqiiqatan siyaasad masaajidka lagu masabidinayo qaaban ugu tartanno ma garanaynaa siyaasadda banaanka keen aan ku tartanno wax lala yaabo waaye qof muslim ah oo cajiib ah oo weliba xasanad leh oo masaajidka inta kugu galay been ka dhex sheegayo oo masaajidka inta kugu galay siyaasadda kugu masabidinayo madaxweyne beebeega dhig 3 saacadood jidka loo xirayaa maalintaas ama qofaa ku dhimanaya ama qofaa ku dhaawacmay adoo 3 saac wadada lagu xiraayay inaad tiraahdo ma rabi cabdi bilo baahni anigu iyo inta ila midka ma ka aqbalayin si aan kaaga aqbalno waxa aad sheegayso run ka dhig siyaasadda banaanka noo keen masaajidka ka soo dhaxsaar aan kugula tartanno waxaan rabnaa kursiga aad ku fadhiisid wax kale oo aan rabno male dagaal sokeeye ma rabno dhib kale ma rabno kursiga aad ku fadhiisay inaan ka dhaxalnaan rabnaa adigaba sidaas aad u dhaxashay maanta inta banaanka taagan oo musharaxiinta ah adiga un baa ka maqan booskaagina ra'iisul wasaare Roobla soo galay intiid adiga sheegaysiyaan sheegohaynaa wax kale ma sheegohaynaa madaxweynuhu ilaahay ka cabso khudbadaada iyo khudbooyinkaaga masaajidka aad kula dhuumanayso naga daa waa dhibsanay umana baahnin masaajid dhexdiisa oo kadbi lagu samaynayo oo qof lagu masabidinayo war xalaal ma hata ilaahay aan ka baqno waxa aad sheegaysaa waa inay ummadda Soomaaliyeed ay dhidhimin karto waxaan la dhidhimin karin hadaad sheegtid nacayb un baa lagu sii qaadaya shacabki waa arkaysaa meesha hawarirtaha ku ooyoos waa arkay tukalo agooma wadataa halkan ku ooynayso maalin dhaweeto waxaan arkay oo madaxweynayaasha iyo musharaxiinta ay calanka saarayeen Batuule Axmed Gaballe oo gorgoradeedii looga soo dhax tagay muxuu ahay meeshii liirabaal madaxweyne waxa aan ku sheegaynaa wax qiyaali ma waa wax dhaba haddii gabdhihii gorgoradooda ay fakanayn haddii aanan annaga ruuxayna fakanayn haddii mudaharaadkii iyo tasuurkii lagu doortay aad diidayso madaxweyne saan kuula dhaqannaa sidaan kuula dhaqan lahaynaan rabnaa keliya waxaan rabnaa war dadka u tur dhulka aad burburinay jooji waxaan ka cilcilnaynaa odoogii 8 jirka ah kii ku jifid ahay waa hoose waxa Sheekh Shariif ku xabadaynaysa waa nin reerka adiga aad ka dhala jifida hoose siya warniyow dad cun ha noqon waqtigii burburka ayaa muxuu ahay ay heesa qaadeen kooxihii waabir iyo kooxihii muxuu ahay dalka ay ka tirsanaa waxay dhaheen awraabow hargeysa aante car xamar ka dar hadda hawarirta ka oohaysiis adoogii adeer ka ahay ka oohaysiis car anaga nagu dar car anaga nagu dar marramno qiyaali marramno dagaal sokeeye marramno nabalaan rabnaa maalin dhaweeto waxaan arkay anigu waxaan joogay carradaas koraan jari waxaan arkay madasha oo qortay warqad oo dhahayso wasaaradda amniga oo aan ognahay oo fartaag oo madax ka yahay oo fartii oo dadka ku caynaysaan aw lahay ayaa warqad loo qoray maxaa la leeyahay mantaqaan wasaaradda sharafta leh waxaan rabnaa inay amnigaayna sugto waa mudaharaadaynaa war sidaa adoo lagu sharfaaya oo wasiiradaada ay dariiqada la taagan yihiin xaquuq male dadkan ayaan ku ciseeyohoynaa oo aan dhahohoynaa waa dowladda keliya ee maanta noo jirta waaye aan ixtiraam haddii ka waran adiga aad maryaha meel dhigato ee adoo qaawan dadka aad dhex socoto adigii wasiiradaada aad leedahay xaquuq male dadnimo male dadkan xaquuqba male
xaquuqda waa tii adiga lagugu doortay oo dowladda ku ahayd haddaad diiddo dastuurkii lagugu doortay haddaad diiddo wallaahi inaana madaxweyne ku dhahayn markee alaa diiday dastuurkii lagugu doortay dastuurka lagugu doortay dib ugu soo noqo waxuu dadka siinaayo waa ogolow waxuu adiga ku siinaayaan ogolaanaynaa inta keliya ee muhiimka waa taas insha allah waxaan rajaynayaa madaxweynaha ayaa khudbada ugu muhiimsan noo jeedin doono dadka Soomaaliyeed ee caawa halkan fadhiya mudaharaadka loo soo baxo koow ana idinku hormaray daahir jeeso mudaharaadkan dad ka weysiin iska bax iska laab laakiin ha iga baaqanaha idin aniga dhul liiga ma duminin idinkaan idin doodaya aniga dhul liiga ma dumin guri liiga ma dumin ilmahayga ijaara ay ugu jiraan magaalada dhexdeeda ay degan yihiin laakiin xaquuqdiina aad ii doorateen aan rabaa inaan idinku doorto aan idinku difaaco waxaad yeelaysiin maalintaas ninkii baaqdaa naga mid maaha salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu